aabahay iyo hooyaday waxaa yacni dhibay ama dhibba ay ku qabeen yacni cuntada ay cunayaan sidii ku heli lahaayeen waa dad u dhibtooda. waxay tiri ma adduunka ma uunan ka baqin ilaahay, wuxuu yacni jeclaystay lacagtaada uu kaa qaadanayo adigana wuu kaa cabsooday. waxay tiri wiilyahow adiga waxaad yacni istiraahday haddii aad gabadhan guursatid waad fiicnaan doontaa, laakiin wax jacayl ah oo aniga aad ii qabto marnaba ma jiraan. soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub ama video cusub. asxaabta cusub waxaa idin leeyahay soo dhawaada, janalku waa janalkiina has martiyeenina. asxaabta aan weli nagu soo beerin waxaa idin leeyahay idinkana meesha gaduudan madow nooga dhiga. soo dhawaada asxaabta hore joogta, idinkana waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin, waa idin jeclahay, nala jooga dhiirigelintiina. waxaan idinka rajeynayaa leegta inaad ragta aad ku dadaashaan insha allah, wada shaqeyn daahfuran eena dhex marto biidnillaah. asxaabay waxaan ka codsanayaa haddii ay jirto qiso walaalkaa ku dhacda ama adiga kugu dhacda ama familkaaga ayuu qiso taasoo ku saabsan famil burburay ama famil la xaliyay in aad nala soo wadaagtid si aan anagana wax uga faa'iideysano. sababtoo ah qisooyinka kuwana waa lagu daysadaa, kuwana yacni waxaa laga faa'iidaa waa laga digtoonaadaa. marka waxaa idin leeyahay insha allah soo dhawaada. waxaa nagu soo gudbi kartaa ama igu soo gudbi kartaa instagramkayga umusuna igu qoran ama facebookayga Faadimo Isxaaq Axmed. welcome. maanta waxaa noo wadaa qisadan waxaa waaye xaqiiqatan qiso yacni ku tusaysa in kala sareyntu amase haddii oo ilaahay hanti ku siiyey aadan dadka ku diganin, in xoolo ilaahay ku siiyey aadan dadku ugu faanin, in yacni aadan marnaba hanti kasta oo aad haysatid aynan kuu iibin karin jacayl. xaqiiqatan qiso waxaa waaye haddii aad dhageysatid aa wax badan ka faa'iidi doontid. waan isla dhageysanay insha allah. soo dhawaada dhammaanteena. qisadan waxay ku bilaabanaysaa waxaa xanuunsaday wiil dhalinyaro ah. wiilkaasoo kasoo jeeday famil dhaqaale heer aada u sareeya leh. yacni waxaa dhalay odayaasha magaalada ugu caansan uguna lacagta badan mid ka mid ah. gurigooda qasriga ah waxaa loogu keenay wax ka badan hal dhaqtar si loo daaweeyo wiilkaas, laakiin waxba iska daa in la daaweeyey cudurka haya xataa hal dhaqtar oo sheega dhaha yacni wiilkan cudur hibil ahaayo waa laga waayay. mar alaali markuu xanuunkiisa uu sii batay oo waqti ka dambeeya uu sii batay wuxuu u wacay maalintii dambe aabihiisa wuxuuna ku yiri waxa i haayo oon la xanuunsanaha aabe waa jacaylkaas oon u qaaday gabar faqiir ah oo kasoo jeedo famil anaka saaid nooga hooseeya. gabadhaasi in aan guursado ma rabto, yacni weyna i diiday. sababtana waxay tahay waxay rabtaa wiil diin iyo akhlaaq leh. anigana waad i ogtaa aabow, iska daa diin iyo waxaas dhanba inaan aan nin ku fiican ahay, salaada xataa sagseegan ka ahay. subxaan allah. aabihii yacni waxaa murjisay wiilkiisa xanuunka intaas hayay in uu yahay mid uu gabar faqiira uu jeclaaday. haddana wuxuu aada iyo aada ugu xanaaqay sideeba yacni anagoo familkan anoo hebel oo wiilkay inta jeclaaday seeba ku diidi kartaa. gabadhiyo wuxuu u qaadaba yacni xanaaq aan inaba caadi ahayn. kadib isla markii wiilkiisa wuxuu ku yiri imaqal, bari ayadoo jilbaha ku haysato ayay imaan doontaa halayiri, waadna guursanaysaa ee ku ogsoonow oo yacni ku bishaareyso hambalyaana ku leeyahay camal. isla markii ama maalintiiba wuxuu diray raggii shaqaalihiisa ka mid ahay nin ka mid ah. waxaa loo diray gabadha familkeeda hooyadeed iyo aabaheed si ay ayada u doono. wuxuu u tagay hooyadeed iyo aabaheed wuxuuna ku yiri
waxaan inka rabnaa gabadhiina. Wuxuuna u geeyay lacag aad iyo aad u badan. Aabihii iyo hooyadii waxay ogolaadeen gabadhoodii sababtoo ah dad iska dhiban oo lacag aad iyo aad u badan helay waaye. Gabadhana ma aynan raali ka ahayn amase ogolaasho maba la weydiinin. Wuxuu kaloo sameeyey ninkii lacagta lahaa. Waxaa jirto hadda waxaa la gaaray horumar oo maxkamadaha oo kaleeta wadamadaas la iska nikaaxsadaa. Waqtigaas waxaa jiray nin oo ma'duunka in lasoo maro. Marka ma'duunkii u tagay wuxuu dhahay waxaan sameynayaa nikaax. Waxaana ogaataa in aan nikaaxaas qabanayo oo ii fasaxdid. Waxaana isku nikaaxi rabaa oo dhahay ama su'aal u weydiiyey ma ansaxayaa nikaax gabar aan ogoleen oo wiilkayga qasab ku siinayo. Ma'duunka markaas lacag badan waa la siiyey. Markuu lacagtii qabsaday wuxuu yiri haa wuu ansaxayaa sababtoo soo waalidkeed ma dhiibayaan. Kadib meeshii waxaa imaaday gabadhii. Markay imaaday wiilkii oo gabadha si aan caadi ahayn u dayaayo oo jacayl badan u muujinayo wuxuu arkay gabadhii oo dhoolla cadeynayso samadana fiirinayso. Markaas wuxuu ku yiri maxaa dhacay? Wax muruga maba kaa muuqdaan waad faraxsan tahay. Markaas waxay ku tiri aniga waalidkay waxaa waajib ka saaran inay gabadhooda u naxariistaan. Mana ahan waalidkay in ay igateen wax kasta oo ay lacag tahay ama lacag kasta oo aad siiseen. Laakiin waxay tiri ma'duunka waxaa waajib ka saarneed in uu runta ku hadlo uuna dhaho guur qasab waa baadil. Waxay tiri aabahay iyo hooyaday waxaa dhibay ama dhibba ay ku qabeen cuntada ay cunayaan sidii ku heli lahaayeen waa dad u dhibtooda. Waxay tiri ma'duunka ma uunan ka baqin Ilaahay. Wuxuu jeclaystay lacagtaada uu kaa qaadanayo adigana wuu kaa cabsooday. Waxay tiri wiil yahow adiga waxaad istiraahday haddii aad gabadhan guursatid waad fiicnaan doontaa. Laakiin wax jacayl oo aniga aad ii qabto marnaba ma jiraan. Waxay tiri qof aan Ilaahay ahayn oo maanta iga kiin badbaadinayo ama badbaado aan weydiisanayo ma jiro. Waxaan madaxayga kor u qaaday oo samada u fiirinaya Ilaahay in uu i badbaadiyo. Asagaana radihiisa ama wuxuu qadartiisa aan raali ku noqday. Waxay tiri waxaan ku xasuusinayaa xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam. Sadaqada maal ma nusqaamiso. Qofna hadduu Ilaahay isku duleeyo Ilaahay kor u qaadaa. Dadkii meesha joogay oo sugayay meherka wiilkan iyo gabadhan inuu dhaco waxaa saameysay hadalkii gabadha ay jeedisay. Qof kasta oo meesha fadhiyay aad iyo aad u ilmeeyay ilaa meeshii dhammaan dadkii joogay ay wada qiiroodeen. Waxaa hadlay wiilkii wuxuuna ku yiri aabihiis aabe maqal. Waxaa iiga khayr badan in aan u dhinto xanuunkayga intii aan qalbi jabi lahaa oo dhibaateyn lahaa gabar dhib u geysan lahaa miskiin taasoo wax dambiya aanan geysanin. Kadib gabadhii iyo waalidkeed sidii ayaa lagu fasaxay oo lagu saamaxay. Wixii lacag iyo waalidkeed qaateenna waa loo cafiyay. Wiilkii wuxuu yiri aabe maqal aniga waxaa rabaa inaad ii keentid sheekh kaas oo i baray umuurta diintayda si aan diintayda wax badan uga barto. Waxaa loo keenay sheekhi wuxuu barayay quraanka, salaada, dhammaan diinta. Ilaa iyo sanad kadib wiilkii uu isbedelay asagii dhammaa uuna noqday
wiil yacni ilaahaygiisa ku xiran, salaada waqtiyadooda tukada, yacni habeenkii kaca waqtiyada dambe ilaahay barya, ilaahayna weydiista inuusan ku celin yacni xumaantii oo hore u sameyn jiray. waxaa dhacday wiilkii inuu u tagay gabadhii hooyadeed iyo aabaheed, uuna gabadhii u doontay, laakiin familkii iyo gabadhii waxay kusoo dhaweeyeen farxad ay inaba caadi yahayn. sidii ayuu gabadhii ku guursaday, kulana aqal galay, waxayna noqdeen famil farxad iyo maxaa la yirahdaa ilaahay ridihiisa iyo guri barwaaqo leh sidii ku galay. qisadeena waxay ku dhamaatay halkaas. waxaa qisadan ka dareemeynaa ama ka faa'iideysanaynaa isla weyninka ama qof inaad iskala weynaatid ama kibirka ama lacagtoo kale inaysan marnaba jaceylku iibi karin. jaceylku waa dareen qalbiga kasoo baxa, waa yacni dareen qofka yacni qalbigiisa galaysa. waxaan kaloo idiin soo wadaa qiso oo indhool uu wiil ah uu jeclaaday gabar. marka jaceylku ma ahan yacni inaad wax aragtid, ma ahan inaad hanti leedahay, laakiin waa wax qalbiga kasoo baxo. qisadaas ayadana oo indhoolkana waa qiso aad iyo aad u macaan. waxaan rajeynayaa inaa ayadana dhagta usii wada taagi doontaan. marka qisadan waxaa ka faa'iideynaa oo qof kasta oo walaalaa iyo anigaba ilaahay ka magan galaa inuu ilaahayna siiyo hanti, taas oon ku dhibaateyno dadka yacni naga duruufta hooseeyo oo masaakiinta ah. ilaahay waxaa ku weydiisanaynaa lacag haddaana siisid in ay noo noqoto mid aan walaalihiin ku saacidno oon ku garab istaagno. yaa rabbi aamiin. yacni hantida haddaa haysatid iyo haddaad faqiir tahaba, ilaahay labadaba adiga wuxuu ku tusayaa yacni imtixaan aa lagu saare, sidaad noqonaysid oo ilaahay ku fiirinaya. haddii aad xoolo haysatid ma ahan inaan lagu imtixaamin, maxaa yeelay xooluhu waaba imtixaan. sababtoo ah haddaadan ilaahay ku raali gelin xoolahaas, sababtoo ah waxay ku geynaysaa naar. waxaana noo sheegay nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam xadiis uu Mucaad warinayo uu leeyahay, nebiga waxaa arka dhahayo way qasaareen. markaasaa dhahoo yiri yaa rasuulallah, anigoo naxay os dhahayo maxaa adi miyaa ku jirto waxa qasaare? markaasoo dhahay waxa qasaare waa dadka hantida fara badan leh, kuwaasoo aan hantidooda dhiibinin, laakiin waxaa badbaaday oo haddana yar aa layiri dadka bidix iyo midig lacagta ka bixiyo oo hantida leh. ilaahay waxaa ka rajeynaynaa dadkii xoolaha hadday helaan midigtooda waxay bixisay bidixda aysan dareemin, inuu dhammaanteen ilaahay naga dhigo. ilaahayna inuu naga dhigo dad walaalahooda masaakiinta u naxariista, isku naxariista. qiso kaloo ayadana waxaan soo wadaa xaasidnimada ka hadlayso. ilaahayna xiqdiga iyo xasidka naga haayo. walaal haddii aad yacni qisadeyda ka hesho, waxaa kaa rajeynaa leegta inaad dharagta ku siisaan insha allah. wax badan ay noo faa'iideynaysaa. idinka codsanaya biliis min fadlikum leegta dharag iskaga sii videoga haddaad sii dhameynaysid jagsi haddaa ilowda haddaba. walaal haddii aad ku caajistay qisadeyda waxaa ku leeyahay waa mahadsan tahay, iga raali noqo. waan idin salaamayaa dhammaantiin. intaa ku kulmi doono videoga xigo. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.